bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka rajo qaran TV waxaana ugu dooron al-shabaab oo meydada ay qarax ku xireen maanta ku dilay gudoomiyihii deegaanka Goofgaduud Buure iyo taliyihii deegaankaas oo hoostaga magaalada Baydhabo ee caasimadda gobolka Baay. meydadka shabaabkii weeraray hoteelka Eliid oo weli yaala gudaha hoteelkaasi milkiilaha hoteelkaasi xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka hadlay sida uu dhacay weerarkaasi. shirka dhuusan reeb saddex oo gelinka dambe laaca wala filayo inuu ka furmo magaaladaasi iyadoo weli ay diidan yihiin ka qaybgalkiisa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. dowladda Soomaaliya oo sheegtay in weerarkii ka dhacay Goofgaduud Buure ay ku dishay dagaalamayaashii ugu badnaa abid. Sheekh Shariif oo weerar afa ku qaaday madaxweyne Farmaajo isagoo u diray digniin culus. Turkiga iyo qaramada midoobay cambaariyay weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay Muqdisho iyo ra'iisul wasaaraha Japan oo la dhigay isbitaal ku yaala gudaha dalkaasi. haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu soo biirtay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino. taariikhdu waxay tahay 17 bisha 8 Agoosto sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal. hagaag aan ku bilowna magaalada Baydhabo gaar ahaan deegaanka Goofgaduud Buure. dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa maanta weerar culus waxay ku qaadeen deegaanka Goofgaduud Buure oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. weerarka oo ku bilowday qaraxyo ayaa al-shabaab waxay la beegsadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa koonfur galbeed ku leeyihiin deegaanka Goofgaduud Buure waxaana halkaasi ka dhacay dagaal toos ah u dhexeeya labada dhinac. kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in weerarka ay ku bilowday qarax kadib ay u soo rogashay inay gacanta ku dhigaan saldhigga ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin Goofgaduud Buure isla markaana halkaasi askar badan ku dilaan sida warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka. wararka ay ka helayso warbaahinta deegaanka Goofgaduud Buure ayaa sheegay in taliyihii saldhigga booliiska deegaanka Goofgaduud Buure ee gobolka Baay Xasan Isaaq Xasan Baka gudoomiyihii deegaankaasi Isaaq Cali iyo ilaaladoodii ay ku dhinteen qarax miino al-shabaab ay ku dhex qariyeen meydadka askartii lagu dilay qaraxii iyo weerarkii xigay ee ka dhacay deegaankaasi saldhig ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin. taliska ciidamada xoogga dalka ayaa waxay ka hadleen qaraxyada iyo weerarka al-shabaab ku qaadeen maanta deegaankan. taliska ayaa sheegay in howlgal ka dhacay deegaanka Goofgaduud Buure ee gobolka Baay lagu dilay ilaa 10 dagaalamo ka tirsan shabaab. dhanka kale warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab ayaa sheegtay in dagaalamayaal ka tirsan kooxdooda ay dagaal kula wareegeen deegaanka Goofgaduud Buure. xaaladda deegaanka Goofgaduud Buure ayaa haatan ah mid degan balse waxaa dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. bishaan bilowgeedii ayay ahayd markii ciidanka xoogga dalka ay dib u qabsadeen deegaankan oo dhawaan al-shabaab ay dagaal ku qaadeen kadibna ay la wareegeen. markaana Muqdisho meydad hor leh ayaa maanta waxaa laga soo saaray hoteelka Eliid oo ku yaala xeebta Liide ee degmada Cabdicasiis halkaasi oo weerar ku bilowday qarax ay ku qaadeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab. maanta waxaa hotel ka tagay qaar ka mid ah dadka ku nool gobolka Banaadir oo baadigoobaya ehladooda oo ka maqan kuna tuhumayeen inay joogeen hotelka waxaana laga soo saaray meydadka ilaa 12 qof. hafayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Dhamma Sadiq Aadan Cali waxa uu sheegay in 16 ruux ay weerarkaasi ku dhinteen hase yeeshee korortay dhimashada kadib markii meydad hor leh maanta laga soo saaray gudaha dhismahaasi. ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya oo ku sugan Liido kuwaas oo sugaya amniga maadaama howlo nadaafadeed ay ka bilowdeen hotelka Eliid iyo meelaha ku dhowdhow ay qarax u saameeyay. al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarku qarax ku bilowday ee lagu qaaday hotelka Eliid oo ku yaala xeebta Liida iyagoo sheegay inay ku dileen mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. inta la xaqiijiyay dhimashada ayaa haatan kor u dhaafaysa 25 ruux halka dhaawaca uu gaarayo weerarkii halkaasi ka dhacay gaar ahaan hotelka Eliid ku dhawaad 40 qof. geesta kale taliyihii hore ee hay'adda NISA Tuur Yare ayaa ka hadlay weerarkan. taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya General Cabdiraxmaan Tuur Yare oo u warramay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa ka hadlay xaaladda ammaani dalka gaar ahaan weerarada ay geysato kooxda al-shabaab. Tuur Yare ayaa markii hore sharaxaad dheeri ah ka bixiyay waxyaabaha muddooyinkii dambe soo kordhiyay weerarada kooxda al-shabaab ka fulisay Muqdisho iyo guud ahaan dalka wuxuuna hoosta ka xariiqay in markasta oo la gaaro dhamaadka muddo xileedka dowladda ay xoojisay weeraradeeda si ay uga faa'iideysato marxaladda kala guurka ah. sidoo kale wuxuu sabab uga dhigay in si laba jibaarmaan weerarada al-shabaab gaabis ka jira xagga dowladda isagoo sheegay in howlgallada ciidamada ay ku egyihiin Muqdisho wuxuuna shaaciyay in muhiim tahay in la gaaro goobaha laga soo abaabulo weerarada si looga hortago loona wiiqo awoodda al-shabaab oo muddo fog dagaal wada.
dowladdu maysan qaadin duulaan weyn marka laga reebo weeraro yaryar oo ku dhufo ka dhaqaaqa taasi oo meesha kama saaraysa abaabulka al-shabaab balse waxaa ku haboon si looga hortago qorshahooda in loogu tago meelaha ku jiraan haba ugu badnaadaan ee gobolada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose oo caasimada Darisla ah dhinaca kale wuxuu soo jeediyay talooyin oo ku soo koobay ilaa 4 qodob kuwaas oo ku tilmaamay in looga adkaan karo dagaalyahanada shabaab hadalka taliyaha ayaa ku soo aaday iyadoo weeraradii ugu dambeeyay saacado badan qaatay al-shabaab shalay galab ka fuliyeen magaalada Muqdisho kaas oo ay la beegsadeen hoteelka Iliid oo ku yaala xeebta Liida ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir bilowgay bishan oo maraysa maanta 17 al-shabaab ayaa 3 qarax oo ismiidaamin ah oo waaweyn waxay ka fuliyeen gudaha Muqdisho qaraxii koobaad ayaa koodii bishan waxa uu ka dhacay xarun ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 27aad ay ku leeyihiin degmada Warta Nabadda gaar ahaan xaruntii hore ee xisbiga sidoo kale 3dii bishan maxaabiis u xirneed shabaabnimo ayaa xabsiga dhexe weerar dad badan ay ku dhinteen ka fuliyay shalay ayay ahayd markii weerar dad badan noloshooda galaaftay al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha hoteelka Iliid oo ku yaal goob aad loo ilaaliyo weerarkan ayaana ku naf waayay dad ku dhow 25 ruux dhinaca kale qaramada midoobay Turkiga ayaa si adag u cambaariyay weerarkii shalay ka dhacay Muqdisho war qoraal oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay Soomaaliya ayaa waxa si adag loogu cambaariyay weerarkii xooganaa ee shalay ka dhacay xeebta Liida gaar ahaan hoteelka Iliid lagu magacaabo qoraalkan ayaa waxa lagu sheegay qaramada midoobay ay aad uga xun tahay weerarkaasi oo ay ku dhinteen dad iskugu jira shacab iyo ciidan sidoo kale qaramada midoobay ayaa tacsiyo u dirtay qoysaskii iyo heladoodii ay dadkoodii ku geeriyoodeen weerarkaasi dhanka kale Turkiga ayaa si kul uga hadlay weerarkan isagoo si kul u cambaariyay kadib war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in xukuumadda Ankara ay si xoogan u dhaleeceynayso weerarka lagu qaaday gudaha hoteelka Iliid ee Muqdisho ugu dambeyn dowladda Turkiga ayaa sheegtay in tacsi Iiraan u dirayso dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaana naxariista Alle u rajeysay dadkii ku geeriyooday qaraxaasi oo iskugu jira shacab iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya markaana aan fiirino Dhuusamareeb shirka Dhuusamareeb 3 ayaa furmaya sida la sheegay galabta ilaa caawa madaxda Dhuusamareeb ku sugan ayaa sidan isla gartay sida aan warar hoose ku helnay madaxweynaha Puntland ayaa shuruud adag ka dhigay maatinkiisa Dhuusamareeb ka hor in beesha caalamka la keeno madasha halka madaxweynaha Jubbaland uu ku xanuunsanayo magaalada Nairobi shirka Dhuusamareeb ka socon doona oo sida la sheegay furmaya galabta ilaa caawa ayaa 3 cisho waxa uu ka socon doonaa magaaladaasi haddii muddadaasi aysan ku imaan waxa ka soo bixi doona sida la sheegay madaxda ka maqan war murtiyeed u gaar ah madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada magaalada Dhuusamareeb waxaa ku sugan madaxweynayaasha dowladaha kala ah Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale magaaladaas waxaa ku sugan guddigii farsamada ee loo xil saaray inay ka soo tala bixiyaan hanaanka doorashada dalka nuucay noqon doonto dhinaca kale Sheekh Shariif ayaa dowladda Soomaaliya sheegay in aysan daacad ka ahayn heshiis laga gaaray xasarada siyaasadeed ee dalka aloosan madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo eedayn kale u jeediyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya Sheekh Shariif waxa uu sheegay in madaxda dowladda qorshaha ugu jiray inay qabtaan doorasho sidoo kalena aysan daacad ka ahayn heshiis laga gaaray xasarada siyaasadeed ee ka dhaxaysa iyaga iyo dowlad goboleedyada waxaan aaminsanahay in madaxda dowladda aysan daacad ka ahayn heshiis laga gaaro xasarada siyaasadeed ee u dhaxaysa iyaga iyo dowlad goboleedyada sidoo kalena aysan qorshuhu ugu jirin qabashada doorasho heshiis lagu yahay ayuu yiri Sheekh Shariif ugu dambeyn madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ayaa uga digay gudoonka golaha shacabka inay ka fiirsadaan tallaabooyinka aan dastuurka ahayn ee ay ku dhaqaaqayaan iyadoo ujeedku yahay in xil kordhin ay u xalaaleeyaan madaxtooyada waa sidoo hadalka u dhigay hadalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa uu ku soo aaday xilli aan wali xal rasmi ah laga gaarin arrimaha la xiriira doorashada Soomaaliya isla markaana shirkiga go'aan looga gaari lahaa ay hortaagan tahay caqabado uu ku furmi laayahay shalay ahayd markii Puntland ay ka soo saartay mowqifkeeda ku aadan shirka Dhuusamareeb 3 iyadoona ku xiray ka qaybgalka shirkaasi dhowr qodob khilaafka u dhaxeeya dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa maalmihii dambe cirka isku shariirayay balse uu ka sii darayaa haddii uu furmo shirka Dhuusamareeb 3 oo la sheegay in maanta gelinka dambe uu furmayo markaana Somaliland Taiwan ayaa si rasmi ah xafiis uga furatay magaalada Hargeysa xukuumadda Taiwan ayaa maanta si rasmi ah xafiis cusub oo diblomaasiyadeed uga furatay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland hirgelinta xafiiskan ayaa yimid kadib markii dhawaan heshiis rasmi ah ay ka saxiixdeen labada dhinac oo wakiilo isdhaafsaday sidoo kale munaasabad lagu daafuray xafiiska ay Taiwan ka furatay Hargeysa ayaa lagu qabtay magaaladaasi waxaana ka qayb galay wasiirada ka tirsan xukuumadda Biixi
waxaa sidoo kale internetka uga qayb galay xafladaasi wasiirka arrimaha dibadda Taiwan wuxuuna sheegay inay si aad ah ugu faraxsan yihiin furitaanka xafiiskaasi. dhankooda wasiirada Somaliland ee madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in xafiiskan uu sii xoojin karo xiriirka dhexeeya labada dhinac. arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan dowladda Soomaaliya iyo Shiinaha ay si weyn uga soo horjeesteen xiriir dhexmara maamulka Somaliland iyo jasiiradda Taiwan oo sheegta labadaba inay ka kala go'een Soomaaliya iyo dalka Shiinaha. markaana daawadayaal warkii dibadda, ra'iisul wasaaraha Japan ayaa la dhigay isbitaal ku yaala gudaha dalkaasi. ra'iisul wasaaraha waddanka Japan ayaa maraya baaritaan dhinaca caafimaadka kadib markii lagu arkay astaamo u eg xanuunka dilaaga ee COVID-19 maanta oo Isniin ah iyadoo weli dalkaasi ka jiro xanuunkaasi. ra'iisul wasaare Abe waxaa la filayaa in maanta gelinka dambe gurigiisa dib loogu celiyo kadib markii uu dhamaado baaritaanka caafimaad ee haatan uu ku jiro. waxaa la tilmaamayaa in la dhigay isbitaal ay leedahay jaamacadda Tokyo University si ay qaar ka mid ah ehelada ra'iisul wasaaraha ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. warbaahinta gudaha dalkaasi qaar ayaa ku waramaya in ilaa haatan aan si dhab ah loo xaqiijin karin xanuunka rasmiga ah ee uu ka cabanayo ra'iisul wasaaraha dalka Japan. saaxiibayaal waa naga intaa warkii aad nagala socoteen inta war noocaan ku kulmi doona sidaas iyo amaanaal.